سرداني يا كراش كحيان كيسا انت كلا قفل بماشي وكلي ملاحظي هورا يكوا هذا هيا ادبان دي ولا سلام يا سلام عليكم ورحمه الله وبركاته سلام كبعدي waxaan u malaynayaa caawa shaqo fiican baa halkan ka socota waxaana garanaynin inay tahay walqal iyo galbin midkii la odhan lahaa xafladan caleemasaarka ah ee madaxweynaha cusub ee Puntland iyo ku-xigeenkiisa waa mid taariikhi ah maanta isu keentay Soomaali aan xusuusan karayo warkii gabanaha Gaaris uu ku hadlayay ee walaatan iyo NFD wala jooga Soomaali way ku dhantay waxay muujinaysaa raad taariikhi ah oo Puntland isbedelkeedu siduu ku yimaado marxaladaha ay soo martay dawladnimada lagaga dayanayo hooyada ay u tahay Soomaalida cusub ee maanta degan iyo markii hore inay ahaayeen dad halgankii hore lafdhabar u ahaa waan ku amaanayaa arrinta reer Puntland waxaan leeyahay Soomaalida inta kale way ku adag tahay hadda hal cod inta lagu kala adkaado inta tiib lagu kala baxo madaxweynaha hadda xilka ka degay Mr. Gas hal marin farole madaxweynihii ka horeeyay hal cod buu kaga tagay oo la isku hayo uu khaldamay iyo ma khaldamay taa macnaheedu waxa weeyaan reer Puntland siyaasadda marka hore hal la jiido laakiin cadka markii la qaado sidii bisadoo kale meel ka istaagaan waxaan leeyahay waa arrin u baahan Soomaalidu inay ku dayato madaxda halkan fadhidana kulli inay u noqoto taariikh iyo darsi laga barto aad baan idinku mahadcelinayaa soo dhaweynta qadarinta iyo qiimaha badan waxaan leeyahay martibani gurigeygii baan joognaa waad ku mahadsantihiin intaa haddaan kaga tago Soomaaliya waxaan u malaynayaa maanta waxay gaadhay xilligii ay taariikhda dib u sixi lahayd waxay taagan tahay xilli la isweydiiyo war xaggeen ku soconaa waxay taagan tahay xilli qof waliba uu qoro qalin iyo warqad intuu qaato maxaad ka tegaysaa oo legacy ah dadkan maxaad uga tegaysaa beri maxay taariikhda kugu xusi doontaa nin kastoo halkan fadhiya maanta oo magac sheeganaya oo magac lagu magacaabayo hubaal waxaa beri oo aad u dhow inuu ka tegayo laakiin waxa uu kala tegay waxay noqonaysaa shay qoran maanta madaxdii Soomaaliya soo martay oo madaxweynayaal ay nagala fadhiyaan waxaan filayaa nin walba inta talaabo uu qaaday waa la garanayaa kuwa maanta joogana beri taariikhdu way qori doontaa iyadoo waqtigeenu sidaa yahay aan ku xisaabtanno aan garanno waddanka aan xukunaa midka uu yahay aan garanno boogaha shacabkeenu ay leeyihiin aan garanno taariikhda waxa aan uga tegayn taasaa waxay inoo tahay mid rasmi ah oo warkii Islaan Ciise daboolaya oo isku waxaynaya waxay Soomaaliya ku socon kartaa wadatashi isqancin isdixgelin is-ixtiraam dowladda federaalkii waxay leedahay in lagu ixtiraamo shaqada ay leedahay mas'uuliyadda ay leedahay waalidnimada ay leedahay inay tahay Soomaaliya cidda matalaadda dhabta ah ku leh dowlad goboleedyadana waxaa lagu leeyahay inta iyagu ay xukumaan mas'uuliyadda ka saaran in iyagana ilaahayna kula xisaabtamayo shacabkuna kula xisaabtamayo ilaa ninka tuulada joogay qof walba mas'uuliyaddu in bay gaadhaysaa aabbaha guriga joogay mas'uuliyadda qayb uu ka qaadanaya waxaan aad u soo dhaweynayaa in aan garanno isku duubnideenu waxa inoo tarayso inaan garanno khilaafku waxa uu dhalin karayo inaan garanno kala maqnaanshaha iyo kala fogaanshaha iyo warka la kala qaadqaadayo waxa uu dhalin karayo natiijada uu keeni karayo waxa sheegay loo baahan yahay waxay tahay inaan isu nimaadno iscalool xaalanno wax isweydiino shaqada gudaheeda in lagu xisaabtamaana ceeb ma aha haddaan la helin xisaabtan iyo waxaan muxuu aan ku khaldamay ama muxuu sidan ku yahay
wax badan baa inaga halaabay sidaa daraadeed waxaan mar labaad soo dhaweynayaa oon aad ugu raacsanahay warkii islaan ciise iyo saaxiibadii igu horreeyey waxaan rabaa garow waan wada joognaa marka hore in la iscafiyo waad garan kartaan dadku inay shixno ku kala tagaan oo wax caloosha isugu hayaan dhibaatada ay leedahay in shaqada la isku canaantaana ceeb ma aha qof walbana qadarin iyo xushmad buu isku leeyahay reer garoowe waxaan leeyahay wax laydinkaga daydo mudan baa maanta jiro fara badan aad baan idinku mahad celinaynaa madaxweynaha cusubna waxaan ilaahay uga baryaa inuu xilkiisa ku asturo iyo ku-xigeenkiisa reer puntlandna awalba way shaqo fiicnaayeenoo way la shaqayn jireen in si fiican loola shaqeeyo annagana waxaan rajaynayaa inaan darsin ka qaadano oo ay noo noqoto wax cid waliba ay sidaasoo kale ugu dhaqanto doorashada lasoo qaado la yidhaha alleelahi reer garoowe iyo siday doorashadooda u dhacday waa inay meel hebloona u dhacdo saasana u dhacdo madaxdii hore waxaan leeyahay allah idinka siiya khayr wixii aad soo qabateen tan iyo cali maxamed geedi ormaran ra-iisul wasaare madaxweynihiisa allahu naxariisto uu dhintay iyo inta kale hadda xilaalka haysaba kulligiin waxaan leeyahay guul baan idiin rajaynayaa reer garoowena guul baan idiin rajaynayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu aad baad u mahadsan tahay mudane madaxweyne haddana waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo madaxweyniheenii hore mudane madaxweyne cabdiraxmaan maxamed faroole sacabka soo dhaweeya sheeknimadii baad ilowday iyo senatoornimadii السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ترين كريم مايو سلامتا مدحدا هلكن isugu timi heer caalamiya iyo heer national qaran iyo heer dawladeed oo dawladaha xubinta ka ah dawladda federaalka iyo qaybaha kale oo bulshada oo dhaqanka iyo culimada iyo dumarka iyo dhalinyarada dhammaantiinba wayna salaamaya salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mar labaad marka u horeysa waxaan jeclahay inaan bogaadiyo una duceeyo madaxda la doortay oo ah madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo gudoomiyaha